ninkan ayaa la sheegay inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun. xariifkan ayaa wuxuu isku diyaarinaya inuu aado wadankiisa isla markiiba waxa loo sheegay wadankiisa inuu burburay. kadib markuu dhalada gaarku wuxuu dhahay meeshan maxaa ka socday yani diyaarada laga soo celiyay isla ninkii. isla markaas haddana waxa loo sheegay viisas inuu invalid yani la kansalay. sidoo kale kaarka uu watona lacag uguma jirto. kaga sii daran mana ku hadli karo luqadda Ingiriiska mana oga wadankiisa waxa ka socday wax ka dhacay. kadib waxa loo keenay ninkani wuxuu u sheegay wadankiisa inuu ka dhacay waxyaabo kala duwan laakiin isaga English uu sharaxay ninka Englishka ma fahmayo. kadib wuxuu isku dayay bacdan jibsiga inuu ugu sharxo laakiin ninka wili ma fahmin waxba. wili ninkii wuxuu isku dayay ninkani inuu wax u sharxo wuxuu ku dhahay wadankaaga xal ayuu burburay dhibaatooyin khalaas far badan ayaana ka jira balse isaga waxba ma fahmay. markaas soo baxay wuxuu ku dhahay wareeganaya airportka dhexdiisa. markaas wuxuu bilaabayaa inuu lacag raadiyo sababtoo ah isaga jibkiisa lacag kuma jirto dalkana lacag laan laguma bixi karo. sidoo kale ninkani ma haysto wax sharci ah kadibna uu yaabay halkan iska seexanaya. markaas ninku wuxuu bilaabay airportka dhexdiisa inuu wax walba uu ku dhex sameeyo ku dhex qabeesto sidoo kale ku dhex labisto raashin uu ka dhex walibana isagoo seexanaya kuraasta dadka ku fadhiista halkan wuxuu ugu dhaqmay sida gurigiisa oo kale. ninkan arkay isagana uu yaabay ninkan wuxuu sameeyo sababtoo ah kani waa supervisorka airportka. markaas dadkii odol wax isku sheegay ninkan inuu haysto guri la'aan kadibna uu imaanaya supervisor kadib ayuu soo waday wuxuu sheegay shift inuu jiro yani dadku wardiyaalka sameynayaan kadibna wuxuu ku dhahay 5 daqiiqo kadib wardiyaal cusub ay imaanaya adiga meeshan waad ka bixi kartaa. sidoo kale wuxuu sheegay meeshan inay imaan dad raadinaya qof aan sharci wadan yani booliiska laakiin supervisorka markan wuxuu ku fakaraya ninkan inuu iska dhaqaajiyo sababtoo ah dhibaato iyo culeys far badan ayuu ku hayaa. supervisorka markan wuxuu ku fakaraya ninkan inuu iska fasaxay dhibaatooyin gacantiisa ka sii baxsatay laakiin Victor meel ma dhaqaaqa meeshii taagnaanaya dhammaan kaamirooyinkan Victor ay qabanayeen meeshii uu taagan yahay kadibna kaamirsiisay soo fiirin supervisorka inuu wax sameyn karta ayuu ku dhahay waliba isagoo ku dhuumanaya kaamirada. markaas Victor wuxuu sameeyay wuxuu dhawaanaya kaamirada wuxuu ku dhahay adiga oo kaliya aan ku sugi doona banaanka aan ku suga meelna oo ma socdo. supervisorkii markan qorshiisa uusan u shaqeyn sababtoo wuxuu rooyay Victor inuu iska saar laakiin Victor meeshii uu sii joogay wuxuu ku dhahay meel oo ma socdo aan joogay halkan. Victor wuxuu arkay gabadhan saddeq baxsanis waliba lacag meeshaas guridaysa kadibna wuxuu bilaabay lacagta inuu soo baxsado laakiin uu soo bixayso. sidoo kale Victor wuxuu ogaaday markan inuu helay fursad uu ku heli lahaa lacagtu meeshan aga bixi lahaa. ugana daawadaha 11 muuqaalka in like inuu sarto sidoo kale la wadaagto asxaabtaada kale. markan Victor wuxuu helay qorshe uu lacagta ku sameyn lahaa sidoo kale wuxuu cunay raashin sababtoo markiis raashin uu muusan haysan lacagna ma uusan haysan. sidoo kale Victor wuxuu bilaabay haddana inuu ka dhex shaqeeyo airportka dhexdiisa walibana isagoo lacag far badan raba inuu ka sameeyo. balse Victor qorshiisa markan ma uusan shaqeyn sababtoo ninkan ay ka hortaaga wuxuu ku dhex shaqeeyay waa aniga shaqadayda. markaas ayuu Victor wuxuu isku dayaa inuu barto luqad cusub walibana luqadda Ingiriiska. maalinba maalinta sida bees saxuul ayuu akhrinaya walibana isagoo raba inuu si fiican u fahmo luqadaasi rabana inuu lacag ku sameeyo kuna shaqeysto wadankaas. markaas uu gabadha imaanaya eedan waxay ku dhashay luqadda Ingiriiska ma hadli kartaa anaga isma fahmeen maxaa tiga rabtaa. markaas ayuu luqadda Ingiriiska ku jawaabay gabadhu way yaabaysaa. sidoo kale wuxuu sheegay istaanba inay ku dhufanayso midka gaduudka midka cagaarka sababtoo wuxuu rabaa 50 inuu aado New York. laakiin wuxuu sheegay in taa visa lacagta ay soo laabanaysay oo wadankiisu ku aadi lahaa. supervisorkii markan uu leeyahay wuxuu sameeyay Victor sababtoo Victor wuxuu sameeyay qorshaad aad u fara badan walibana isagoo raba lacagta ka khasartay inuu ku aado wadan kale lacagna uu ku soo sameeyo. markaas Victor soo baxay wuxuu arkay ninkan oo delivery-ga wuxuu jecel yahay gabadhu Victor markii hore la taagnaa oo la sheekeysanayay.